dadkana marka runta kala hadasho way ku nacayaan xaqiiqatan هلا والله يلي توين سلام ما تنقص دو channel كي دالكم كحسبتين magacayga waa Cabdi Qani hadii ay markay ku wareysaan soo boqol filan subscribe nusrada video kan channel like nusar horta maanta waxaan joogaa xarunta maamulka halkan waxa ka jiro barnaamij waxa la bixinayaa qoys walba waxa la siinayaa ama loo qaybinayaa timir marka annagana waxa waajib naga saaran dadkeena iyo sidaan ku badbaadin lahayn sida ogtiin saddex maalin gudood afgoy waxa ku dhimatay in ka badan 65 qofood waa aragteen oo maleena social media ka aragteen waxaan ka soo xigtay walaalkayga Baashi Bile oo dadka markaas social media si fiican looga yaqaano marka annagana waxaan rabnaa ummadeena si kasto aan ku wacyigelin karno inaan ku wacyigelino kuwani waxa waaye warqado oo digniina oo qof walba yaani u sheegayo talaabada laga rabo inuu qaado marka waan ogahay dadka hadda halkan u badan waxa ka mid yihiin dad oo markaasi haweena laga yaabo badankooda inaan wax akhrin laakiin annaga waxaan rabnaa warkeena inuu gaaro yaani hadda maanta warqadaha hadii la siiyo waxa laga yaabaa guriga in la geeyo kadibna la aqriyo dadkaas markaasi ay u noqoto mid wax ku oola marka waxaad moodaa ummadda inaysan baraarugsanayn oo xitaa dawladana aanan u nugleyn hadda waxa idin tusayaa dadka qaar kamid ah sida iskugu dhex jiraan marka nakeen كلنا كم وقنا ويلي دتكيا وحاله سي قيبنا كمنا qoys loogu tala galay deeqada la gaarsiiyo marka aragana oo la tahay barnaamijkana marka waxa markaas taabagelinaya isbuucan marka u fiiriso gobolka Shabeellaha Hoose marka laga hadlayo corona waxa ugu saameynta badnaa waxay ahayd afgooye iyo baraawe xilli dawladaha caalamka ay ku jiraan qofkii la arko in la ganaaxayo xataa wadamo qaar ah ogtiin in lockdown laga qaaday haddana wax aan badnayn kadibna isla lockdown-kii lagu celiyay haddana waxa arkaysaa yani shacabka degmada wala weyn sida isku dhex jiraan oo dhaqaatiirta caafimaadka ee caalamka taladay soo jeediyeen oo aan qofna xitaa u nugleyn marka insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay naafiyo dadkana marka runta kala hadasho way ku nacayaan xaqiiqatan marka dhahdo yani xaaladdu ma wanaagsana cudurkan waa safmar waxa waaye nooc kala lagu fahmaa kulli marka Allah na wada amansado
dhammaan dadkan oo dhan waa loo qaybiyey laakiinse maskiinka haasho xabataa ma haysto bum si kasta aadaba ku maasidin daawashada muuqaalkan haddaad tahay dadka walaweyn joogo waxaan ku leeyahay naftaada ka taxadir dadaalkeedana la imow tan qoyskaaga adiga dadaalkaa leedahay waxaa waaye badbaadinta rabbiga iska leh marka iska taxadir maca salaama